بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى بن آدم كمركو أبوري وحنوية لحواس أما دريميال لحة dareemayaashaasi waxaa kamid aragtida markaa centerkeeda iyo meesha laga hagana waxay ku taalaa maskaxdeena saa darteed qofkii waxa laga yaabaa isagoo indhihii leh hadana qaybtii aragtida ka mas'uulka ahayd ee maskaxdeena ku taalay haduu ka xanuunsan yahay ama ay ka jiran tahay in aragiisu uu dhibaato ku jiro muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsiisay markay kayfa yanzuru ar-rajulu ila al-mar'ati وكيف تنظر المرأة إلى الرجل سيدان نينكو أركا قفك دمركا سيدان سقفك دمركا أو أركتا نينك رجع وحال ليهي أود أركتي أو نينكو ليهي آد أي وحوك بدنتهي أود أركتي دا دمركو ليهي سيدا سوكال وحال ليهي سيدا نينك رجع مسكحديسو أي أصوريسو أو أي أركتو قفك دمركا way ka duwan tahay sida qofka dumarka ah maskaxdeeda ay u suureyso marka ay aragto nin rag ah sida darteed waxa leeyahay ninku markuu qof dumar arko waxa uu arkayaa qayb ayadoo dhan ma wada arkayo focuskiisu qayb bay koraysaa waxa laga yaabaa inuu indhaheedii uu si fiican u arko ayadii uu suureysto waxa laga yaabaa wajigeedii inuu arko ayadii uu suureysto maya muuqaalkeedii structurekeedii inuu arko maya midabkii inuu arko yani waxa leeyahay ninka qofka dumarka ah markuu arkayo indhihiisu maskaxdiisu waxay u suureysaa ka ajzaa sidii qaybo oo kale ay u suureysaa بينما قفك دومر كأه مركي نين رجع عرقته مسكح ده ذو حيو قبنا ساك جزء واحد سيدي هل قيب أسيجي يردن أي صورة سنة قيب أسيجي كم إذا مصورة سنة سادرت أيها حلية حاسدة أم الدرين كأركتده ونين كلية هي وكحوك يعود بديه هي dareen ka aragtida ee haweenku ay leeyihiin saadarteed ayaa in badan oo nimanka kamida waxaaba la yiraahdaa waa basariyiin arinta maxay keentay marka arinta waxay keentay in ragii inta badan lagu soo jiito intibaahoodii iyo dareenkoodiiba lagu soo jiito waxa ay arkayaan marka aad u fiirsato shirkadaha sawirada haweenka qaaqaawan sameeya ama sawirada ibaaxiga ah sameeya waxay u badan yihiin in dumar laga sameeyo marka wax la xayeysiinayo waxay u badan yihiin inay dumar xayeysiiyaan marka program la rabo inuu programkan muthiir noqdo ama uu wax soo jiito waxa lagu bilaabaa dumarka sababtan waxa weeyaa nafsiyad ahaanba ninkan waxyaabaha lagu soo jiito ee dareenkiisa lagu soo jiito waxa kamid ah xaasatul basari aragtidiis maadaama aragtidiisu ay aad iyo aad u xoog badan tahay waa dareemi kartaa markaa sida gabadhu hadaana ilaahay ka cabsanin ay ugu fidnayn karto ninka ragga ah muuqaalkeeda sidaa darteed ayaa in badan oo inaga naga mid ah waxa dhacdo gabdhaheena inay noqdaan kuwa xafladaha lagu qurxiyo kuwa xafladaha lagu soo jiito kuwa xafladaha ma aragtay dharka u soo dhigta si ay u noqdaan dad musiiriin ah oo raggii soo jiita ay u noqdaan saa darteed raggii markaa labay u qaybsamayaan nin aragtidiisa muqaawameeya oo iska caabiya oo celiya indhihiisaas celinteedana waxay noqon kartaa mesela barbaarintiisii oo lagu soo barbaariyay in waxyaabaha uusan ku fogaanin fiirintooda iyo daawashadooda ama wax ceeb ah looga soo dhigay akhlaaqiyan qofkii inuu isku celiyo ama qofkii inuu iimaan iyo diin ay celinayso oo markani waxaan uu iskaga celinayo diintaada way ka xaaraantinimaysay haddii saddexdaasi aanay jirin qofkii iskama muqaawameyn karo iskamana celin karo in aragtidiisu ay meel kasta ku dhacdo xataa waxyaabo xaraana inay ku dhacdo saa darteed qofkii tarbawiyan lagu soo koriyay in waxyaabahaasi ay waxyaabo fiican ahayn dhaqan ahaan lagu soo koriyay iimaan iyo diinna ay celinayso akhlaaqna ay reebayso qofkaasi wuxuu iska muqaawameynayaa nadaradaasi ama aragtidaasi xaaraanta ah ee caafimaadkiisana aan u fiicnayn laakiin qofkii intaasba aysan celinaynin waxyaabaha way u banaanaanayaan saa darteed waxyaabahaasi iskama celin karo iskamana muqaawameyn karo indhihiisii markaa meel kasta ayay ku duldhacayaan الله سبحانه وتعالى وحرق مؤمنين تأيه هوينك مؤمنات كهبا أمري إن لهذا اللعبان صبت وحاوي إلهي أسيان أوري وندريسيه أود أي لأكتهي أما سامين تأيكو كان سنسو هدي قفكو إنده سي دايو أو وحكستو أو حاران وإنده سي كفيريو
إلهي وحيري قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم مؤمنين وشاك إنه ذي هاللابان farjiyadooda ama xubnahooda tarankan ha ilaaliyaan sababta waxa weeyaan aragtidaasi tirada badan qofkii waxay u furaysaa jidad kale oo ay ka mid tahay jidkii xaaraanta ama macsiyada ama zinada uu ku sameyn lahaa saa darteed qofkii waxaa la rabaa inuu indhihiisii wax ka mid ah uu laabo qofkii dumarka ahaana waxaa la amray inay indhaheedii laabto oo is dhowrto laakiin waxaa loo raaciyey inay is asturto oo quruxdeeda iyo mafaatinteeda iyo meelaha ay dadka ku fidneynayso inaanay banaanka soo dhigin sababta waxa weeyaan fitnada ay qofka kala fidneynayso oo laga yaabo in diintiisii iyo noloshiisii iyo adduunyadiisiiba uu hoog iyo khasaaro uu kala kulmo saa darteed gabadhii dumarka ahayd waxaa la amray in xijaabkeedii ay ku dadaasho mafaatinteeda iyo quruxdeedana ay ku soo jiidato qofkii loo fasaxay inay ku soo jiidato oo ninkeeda ah waana waxyaabaha ugu waaweyn ee gabadhu ay ninkeeda ku soo jiidan karto haddii ay fahamto Allah subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu na dhowro indhaheennana uu noo dhowro waxaan muuqaalkan ugu talagalnay qofku inuu dareemo yacni culayska ay leedahay qofku inuu indhihiisii sii daayo sidaas oo kalena gabadhii muslimadda ahayd aan ku dhiirigelino aan ku baraarujino haddii quruxdii Allah subxaanahu wa ta'ala siiyey mafaatintii ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu jirkeeda u yeelay ay banaanka soo dhigto inay sabab u noqon karto qof muslim ah inuu xaaraan ku dhaco ama uu xaaraan damco ama noloshiisii ay dhibaato u geysan karto aad iyo aad ay u mahadsantihiin aragtidiina qaybta hoose ee commentiska igula wadaag aad iyo aad ay u mahadsantihiin aadna idin salaamaya salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu